السلام عليكم. وعليكم السلام. ترى نقول عبد الرزاق وائل يا سينا. كسع أستاذ. أيوة وائل عبد الرزاق ما سنت وائل سودو. معان سلمان وكو سلامي أذي إيو أنت ماشان كوة جرتوا محاوتي سؤال أو ككوبا لو سؤال مركو حاكمة إنجليز كورت مثلا وحيابه أو لو برتو حيابه حاكمة إن conversation لو قاتو أو شيكيس مرك كجتا إن conversation لقاتو أو أدي لقادنا إن أنت لو قادنا بواتساب جروب أو قاد همان الله سمعنا مسي taas adaa kaaga fudhinan su-aasheeda labaadna waxaa weeyey ingiriiskana keeda ukala baxaan labo lahjadood marka midaan British miya mise waxaa waaye American su'aal wanaagsan intaas waa intaa kaaga okay mahadsantahay waay waxaan siinaa marka macalinka siina maadaama arrintii si toos ah u khusaysa casharada aniga tahay dhankan kale nidaamka iyo farsamada iyo arrimahaas oo kale aan idin sheegi karo marka ustaad Sudu وعليكم السلام وعود سلامتين waxaan rabay inaan ku daro wixii hadal macnihiisa iyo macaanidiisa iyo jiheynba waxa soo dhameeyay macalin Salmaan waxaan rabay inaan ku daro marka hore horta waxa anaga astaan noo ah qancinta iyo horumarinta ardaydeena waxa si hadafkaas aan u gaarno sida uu sheegay waayo uu macalin Salmaan soo koobay uu soo dhameeyay waxbarashada ama barashada af Ingiriiska waxaan u diyaarinay qaab aad u fudud oo aad u sahlaya in qofku uu fahmo asagoon ku caajisin marka waxyaabaha aan sameynaa waxa kamid ah hadii qofka hada sida uu su'aashu uu weydiiyay waa ilmise ama su'aashu uu weydiiyay ahayd sidee qofka uu ku hadalka ama wada sheekaysiga af Ingiriiska uu isaga dhisi karaa ama isaga horumarin karaa waxaa jira horta oo muwaana ah Ingiriiska ama luqad walbo hadii uu rabo qofka inuu barto waxa laga rabaa oo tusaale weyn u ah tusaale abuur ah oo weyn u ah si fiican dhageysta si fiican ila fiiriya tusaalahaas sidii canugo kale inaad u barato waaye af Ingiriiska ama luqad walbo aad baranaysid sidii canugo kale macnaheedu ma ahan inaad ku fikirtid erayada luqadaas aan baranayo inaan xifdiyo waa xifdis iska ilaali hadii mar aad luqadaas aad ku fikirtid erayada inaad xifdiso marna ma gaarisid marna kama hormaraysid meesha aad joogtid macnaheedu luqadaas si fiican ma ugu hormari ma ka sal gaari doonto ama afkaas aad baranaysid ma ku hormari doontid marka waxa loo bartaa tusaalahan rabo inaan soo qaato sidii ilmihii oo kale caruurta hadda la dhalay sida ay luqada u bartaan oo kale loo bartaa canuga yar tusaale ahaan markii uu baranayo luqada waxa waaye ma dhacdo in waalidkiisa ama waalidiintiisa ay la imaadaan dictionary oo aad u weyn oo miisaankiisu uu yahay 3 kiilo ilaa 2 kiilo iyo bar dictionary ah inta hooyo ama aabe ay u keenaan ila soo horfadhiistaan ma dhahaan 500,000 eray ee ku jira dictionary-an xifdi lama dhaho cunugeera hadda afar bil jiro looma keena dictionary-gaas 3 kiilo miisaankiisu uu yahay erayada ku jira xifdi looma dhaho markuu luqada baranayo waa aragteen qof walba arkay ama looma dhaho buug kale oo 2 kiilo iyo bar ah oo naxwo ka hadlayo inta loo keeno cunugaas 4 bil jiro looma dhaho naxwaha buugan ku qoran xifdi hada sidoo u bartaa marka cunuga luqada waa aragteen cunuga wuxuu isku dayaa inuu dhageysto hooyo ama aabo ama walaalihiisa ka waaweyn waxay ku hadlaan dhageysiga uu practice garaya uu dhageystaa hooyadiis waxay dhees u dhageysanaa aabihiis wuxuu erayada uu ku dhawaaqayo dhageystaa walaalihiisa ka waaweyn waxay ku dhawaaqayaan u dhageysanaya hadii qaraabo ay soo ziyaarato guriga wuxuu ku dhawaaqayaan dhagiisa ku dhacayo laga yaabo inuu dhageysiga uu wili xataa gaari laakiin dhagiisa ku dhacayaan markaas waxaad arkaysaa inuu indhaha la raacayo waxay dadka dhahayaan waxa kadib waxa ka arki doontaa in uu ku dhawaaqayo baba mama erey kale xoogaa yar ku xigo uu xoogaa keeni karo oo afkiisa qaban karo inuu ku dhawaaqo ma xifdinin
ama dictionary loo keenay kama xifdinin ama buug naxwi loo keenay kama xifdinin dhegeysigaas uu practice gareeyay and then ereyadaas uu ka xaday dadkii afkooda uu ka dhageysto waalidiintiisa ugu soo dhowna ah iyo dadkii kala soo raaca kadibna wuxuu bartay in uu ku dhawaaqo micnihii dhegeysiga wuxuu keenayaa haddii aad dhegeysato luqad markaa baranaysid sidii canugii oo kale aad u dhegeysatid waxaa ka hormaraysaa ku hadalkaaga ama wada sheekaysiga afka ingiriiska maadaama anaga af ingiriis ay madashu tahay barashada af ingiriiska ay tahay waxaa ka hormaraysaa oo sare u kacaya marka aad wax badan aad dhegeysatid oo af ingiriis ah ku hadalkaa hormarayo ku hadalkaa kaa dhismaayo okay kaas waa qodobka koowaad oo cunuga sameeyo cunuga maxaa kaloo sameeyaa markii 5 sano ama 4 sano uu gaaro waxaa la sameeyaa dugsiga loo diraa alif faxmaale iyo waxyaabahaas lagu baraa qoraal ah qoraalkaas alfaxmaalihii sida loo baro waa wada ogtihiin ama qof walba sida u soo bartay qoraalkaas loogu celceliyaa marka qoraalka loogu celceliyo waxa ka dhismaaya ama aqrinta markii loogu celceliyo waxa ka dhismaaya qoraalka ka dhismaaya macnaheedu waa loo aqriyo alfaxmaalaha marka hore cunuga ma qori karo taban markii loo aqriyo waxa ka dhismaaya qoraalkii markii horena 4 sano markuu ka yaraa dhegeysigu practice gareeyay waxa ka dhismay ku hadalkii baaba imaamu keenay markii dugsiga la geeyo 4 sano ama 3 sano uu gaarayna waxa loo aqriyay alfaxmaaliha loo aqriyay waxa ka dhismay qoraalka waxa kadib wuxuu bilaabay in buug soo qaado loo qoraalka uu ka dhismo kaliya waxa u baahan tahay markaa af ingiriis ama luqad walba uga hormartid sidii canugii oo kale inaad u barato canugana marnaba waxaan dhahnay laba buugo midna 3 kiilo uu yahay midna 2 kiilo uu yahay looma keeno oo naxwe iyo dictionary ee kaliyihiin looma keeno si uu luqada u barto ee kaliya wuxuu sameeyaa labadaas qodob oo midna ah dhageysiga inuu practice gareeyo midna ah in aqrintii uu practice gareeyo dugsiyada uu ka akhristo labadaas shay hadaad sameeyso ama labadaas qodob hadaad ku dhaqaaqdo aad ku dhaqanto waxa hubaal ah in aad ku hadalka af ingiriiska uu hormari doono aqrintii ama qoraalka af ingiriiska aad ka hormari doontid micnaheedu waxaan u keenay taladaas qof walba naga mid ah waxa ka guuxaya maskaxdiisa sidee af ingiriiska ugu hadashaa sida ugu dhaqsiyaha badan af ingiriis loogu hadlaysa waa qaabkee sida ugu dhaqsiyaha badan af ingiriis loo qoro waa qaabkee ma ahan inaad xifdiso waa labadaas qodob sida cunugii oo kale inaad u barato aad dhegeysato oo aad akhriso markaas waxa ka dhismaayo ku hadalkii iyo qoraalka ka dhismaayo waxaan u soo daadagaa su'aashii ahayd Waa'il ama qofkii weydiiyay oo ahayd sidee aan u sameynaa speaking practice ama conversational practice sidee aan wada sheekaysi aan isugu tababarnaa ama aan wada hadalka aan u practice gareynaa waxaan u qorsheynay course program waxa loo qorsheeyay in idinka oo hadda aad gaarisan ku dhawaad 100 arday aad iska soo micni aad xil iska saartaan ama aad abuurtaan groups aad abuurtaan oo hadhoon groups intii aad isku fahmi kartaan ama 10 qofood ama konton macquul ma norto 15 qofood ama 20 qofood inta isku fahmi kartaan inaad group idinka team leader iska dhex doorataan oo aad groupkaas samaysataan and then aad isku practice gareysaan ingiriiska kadib waxaa jiri doona sida uu macallin Salmaan idin sheegay online discussion on weekly basis usbuucle oo macallimiinta aniga iyo macallimiinta kale ay online soo noqon doonaan wax walbo mugdi idinkaga jiro markaad samaystaan group conversational aad samaysataan wixii mugdi idinkaga dhaco ama aad isku practice gareysaan oo aad fahmi weysaan inaad na weydiisaan online meeting kaasna ama online discussion kaas wuxuu noqon doonaa usbuucle maalinaan ka dooran doonaa maalinta ugu habboon oo qof walba firaaqo uu ku heli karo aan inta doorano aan isla wada doorano aan isla fahanno maalintaas uu qof walba soo galaa wixii mugdi aga jiro in uu na weydiiyo laakiin waxa muhiim ah oo mar walba uu sida macallin Salmaan uu idin soo dhameeyay waxaan loo diyaariyay course programka in 60% ay madasha afoogeeda ku bixiso 40% aad idinka bixisaan micnaheedu 40% waxa kamid ah inaad group conversation aad asaasataan oo waliba team leader aad yeelataan oo iska dhex aad samaystaan oo idinka iska dhex doorataan kadibna aad isku practice gareysaan English aad ka barateen madashi wixii mugdi idinkaga jirana aad hadhow online discussion ka aan ugu weydiisaan insha Allah wixii su'aal ah waa weydiin kartaan waa
qaabkaas uu noqon doonaa qaabka ugu habboon ugu fudud oo lagu barto wada sheekaysiga ama conversationka ama ku hadalka af ingiriiska sidii canugii oo kale mar walba ku fikir inaad u barato oo barana sidii markay quraanka xifdi jirtay oo kale lama xifdiyo luqad sideeda luqad xifdin ma ahan waa luqad dhageysi waaye inaad dhageysato oo muuqaalo badan aad dhageysato ama wada sheekaysi badan aad dhageysato ama laba qof oo ku wada hadlaya aad dhageysato iyo inaad akhriso waa luqad kadib xifdiska asaga iska imaanaya ku celcelinta saad ugu celcelinaysa dhageysiga saad ugu celcelinaysa akhrinta waxay noqon doontaa ereyada aad ku celcelisay dhageysigooda ereyada aad ku celcelisay akhrintooda in ay maskaxda si fudud ay u dagaan ee qol yar ka dhax samaystaan ama baqaar weyn oo maskaxda inta ka dhax abuurmo uu noqon doono ereyo bis ingiriis ah ka buuxo oo marba mid ka rabta ala soo baxdo marba mid ka u baahata la soo bixi jumladii sidaas ku abuurmayso marka luqad ha isku dayin inaad xifdiso luqad walba waaye oo hadalkan uu applicable ku yahay marka over to you macallin Salmaan